Asalaamu calaykum asxaabta waxaad kusoo dhawaataan wararka u dambeeya Sportska waxaynu fiirin doonaa 8 rikoor ee xiriir ah Arteta uu ku sameeyay Wembley ayaynu fiirin doonaa sidoo kale waxa uu dambeeyay laga yaray kulankan saaxiib ay ilowina subscribe saarto like dhexdo video aadna share gareyso waad mahadsan tahay haddii aan ku bilaawno Mikel Arteta wuxuu galabta u socdaa Wembley Stadium isagoo rajeynaya inuu sii dheereysto rikoorkiisa guusha ee goobtaas tababaraha ayaa kasoo muuqday garoonka qaranka 8 jeer intii uu la joogay Arsenal 4 jeer isagoo ciyaaryahan ah iyo 4 jeer isagoo tababare ah waxaana markasta uu kasoo baxaya isagoo guul gaaray garoonkaas halka FA Cup-ka halkan waxaanu ku eegaynaa 8daas kulan ama 8daas rikoor uu ku sameeyay Arteta garoonka Wembley haddaan tagno 12 Abriil 2014 FA Cup-ka semifinalka Arsenal iyo sidoo kale kooxda Wigan Atletico oo hal gaaray balse Arsenal waxay ku badisay 4 gool iyo 2 gool oo rigooreyaal ah safarkiisii uu horeysay Mikel uu ku tagay Wembley wuxuu ahaa 2004 markaasna uu gaaray afardhamaadka FA Cup-ka markii uu horeysay 5 sano gudahood Wigan ayay ahayd horyaalka difaaciisa kadib markii ay ka adkaadeen kooxda Man City finalka sanadka hore waxaana hoggaan ka qabteen qaybtii labaad markii Jordi Gomez uu gool ka dhaliyay rigooro waxaana haray 8 daqiiqo kaliya markii Arsenal gool ayaa lagu lahaa kooxda Wigan ayaa gool lahayd 2014 ay ahayd balse goolka barajada Arsenal waxaa siiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Mertesacker ayaa siiyay oo uu saxay qaladkii rigoorada uu keenay isagoo dhaliya goolka barbaraha taasoo keentay waqti dheer in lagu daro rigooreyaal Mikel Arteta ayaa ahaa qaataha joogtada ee rigoorada kadib markii Lucas Fabrega uu badbaadiyay rigoorooyinkiisii ugu horeeyay ee Wigan Mikel ayaa keenay hoggaanka isagoo Arsenal u tuuray ayaa yiri rigooradii koowaad balse Fabrega ayaa mar kale badbaadiyay goolhaha Arsenal kadibna Kim Clijstone iyo Olivier Giroud iyo Santi Cazorla ayaa dhammaantood goolal dhaliyay ayaa yiri si uu u gaaro finalka macnaha ciyaar walba iyo waxyaabaha ka dhacaya sharxayna waa May 17 2014 Arsenal waxay 3 gool iyo 2 gool kaga adkaaday kooxda Hull City oo hadda ka tirsan heerka labaad ee Ingiriiska iyadoo kabtanka caadiga uu ahaa Thomas Firmino ayaa keedka ku jiray dhaawaciis ayaa liiray Mikel wuxuu xirtay calaamadda kabtanimada kulankii ugu horeysay ee FA Cup final muddo 9 sano ah iyo isagoo uu horeeyay iyo kiisii uu horeeyay Wembley cusub si kastaba ahaatee kooxda Hull City ayaa 2 gool ku hormartay 8 daqiiqo gudahood Arsenal 2 gool ayaa laga dhaliyay balse Cazorla ayaa gool free kick ah ku soo celiyay rajada Laurent Koscielny ayaana barbaraha keenay qaybtii labaad Aaron Ramsey wuxuu goolka guusha u dhaliyay Arsenal waqtiga dheeriga ay lagu daray waxaana Mikel uu koob la qaaday Firmino taasoo soo afjartay sugitaanka dheer ee koob la'aanta ah Agosto 10 2014 Community Shield Arsenal ayaa waxay 3-0 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Manchester City markaas oo uu noqday kabtanka kooxda Mikel ayaa hogaamiyay kooxda maalintii furitaanka ciyaareedka 2014 ilaa 2015 wuxuuna ciyaaray 90 daqiiqo oo dhan iyadoo aan si raaxo leh 3-0 u badiyay kooxda horyaalka difaacanaysa Cazorla ayaa goolka furay daqiiqadii 21 Ramsey ayaa goolka dhaliyay Giroud ayaa goolka saddexaad dhaliyay Mikel ayaa wuxuu qaaday koobkiisii labaad ee Community Shield-ka ee Wembley ay ku qaaday Agosto 2015 Community Shield Arsenal iyo Chelsea dhaawac ayaa ka reebtay Mikel semifinalkaas iyo FA Cup-ka xilli ciyaareedka 2014-2015 balse wuxuu ku soo laabtay isagoo bedel ku galay kulanka Community Shield-ka ee 2015 Alex Oxlade-Chamberlain ayaa goolka ka dhaliyay qaybtii hore Mikel ayaa ciyaaray 15 daqiiqo ee ugu dambeysay wuxuuna mar kale qaaday koobkii saddexaad Luulyo 18 2020 Cup semifinal Arsenal iyo Man City isagoo tababare ah markaan Mikel ayaa joogay Wembley isagoo tababare ah ciyaareedkiisii ugu horeysay garoonka ayaa
ahaa mid ewer ah sabab la xiriirta COVID-19 wuxuuna wajahayay kooxdii uu ka yimid ee uu la shaqeynayay Pep Guardiola balse Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dhaliyay goolkii koowaad daqiiqadii 19 wuxuuna mar kale gool dhaliyay si uu guusha u xaqiijiyo. Finalkaas Arsenal ayaa qaaday 1 Agoosto 2020 semifinalkaas Arsenal ayaa soo gudubtay aan dhahe Agoosto 2020 FA Cup semifinal Arsenal ayaa 2-gool kaga adkaatay kooxda Chelsea. Finalkii 103 wuxuu ahaa finalkii 139aad ee FA Cup ayaa lagu ciyaaray isagoo garoonka albaabadiisa xiran yihiin. Chelsea ayaa hoggaanka qabatay daqiiqadii 5aad balse Aubameyang ayaa 2 gool ka dhaliyay mid rigoora iyo mid kale oo qurux badan. Arsenalna waxay qaaday FA Cup-kii 14aad. Arteta ayaa koob qaaday xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay. Wuxuu yiri koobkan wuxuu yahay taageerayaasha si ay ugu faanaan kooxda. Koobkan Agoosto 29keedii 2020 Community Shield ay isku arkeen Arsenal iyo Liverpool waxayna galeen 1-1. Arsenal waxay ku badisay 5-4 rigoorayaal ah. 4 toddobaad kadib dhamaadka xilli ciyaareedka Arsenal ayaa wajahday Liverpool waxayna ahayd ciyaartii 29aad ee Arteta iyo koobkiisii labaad. Aubameyang ayaa gool dhaliyay balse Minamino ayaa barbaro keenay. Arsenal ayaa dhammaan rigoorayaashii dhalisay waxayna ku guuleystay koobka. Agoosto 6, 2023 Community Shield-ka Arsenal iyo sidoo kale Man City ayaa baraja galay. Arsenal waxay ku badisay 4 gool iyo gool oo rigoorayaal ah. Kulankii ugu dambeeyay ee Wembley wuxuu ahaa 2023 Trossard ayaa goolka barbaraha dhaliyay waqtiga dheeri ah kadib goolkii Cole Palmer. Odegaard, Trossard, Saka iyo Vieira ayaa rigoorooyinka dhaliyay halka De Bruyne iyo Rodri ay khasaareen rigooradii. Arteta markaan koob uu qaaday taageerayaasha hortooda Maarso 22, 2026 oo ah maalin Axad ah. Hadda waxaa la gaaray finalkii Axadda waana markii 9aad ee Arsenal kasoo muuqanayso final League Cup ee Wembley. Hore waxa uu qaaday 2 jeer 1987 iyo 1993. Arteta wuxuu doonayaa inuu noqdo tababarihii labaad ee Arsenal ee uu koobka qaada. Sidoo kale wuxuu doonayaa inuu noqdo tababarihii ugu horeeyay Arsenal ee guuleysta 2 final ee waaweyn ee ugu horeysay. Kulankan sidoo kale wuxuu noqonayaa final 2 tababare oo aan British isku arkayaan oo isku qaran ah. Arteta wuxuu ciyaaray 22 kulan oo League Cup wuxuuna guuleystay 15 kamid ah halka hal kamid ah barbaro uu galay lagana adkaaday 6 kulan isagoo 42 gool dhaliyay markaana laga dhaliyay 23 gool. Dhanka kale Pep wuxuu yiri hadal la yaab leh. Wuxuu yiri waxaa jira ciyaartoy cusub oo kasoo baxay akademiyada iyo kuwa cusub oo aan weli wax koob ku guuleysan iyo mid sanadkan. Wuxuu yiri markaan fursadaan dhaafna uu yiri Pepna hadalkiisa intaas ayuu ku soo gabagabeeyay. Waa hadal cad oo ciyaartoyda loo sheegay. Wuxuu yiri waxaa jira ciyaartoy akademiyad kasoo baxay wax koob qaadan macaan waxaa loola jeedaa koobkan gacantiina ku jira waa qaadi kartiin ta ku talagashin waa qaadisiin. Sidoo kale Pep wuxuu yiri waxaan ognahay inaan ku fiicanahay kulamada finalka ayuu yiri. sidoo kale wax badan ayuu ku hadlay wuxuu yiri maan soo gaar lahayn dhamaadka wuxuu yiri maan ku jira lahayn kaalinta labaad daanan fiicnaan sidoo kale maan soo gaar lahayn ayuu yiri Carabao Cup finalka maan soo gaar lahayn wuxuu yiri kooxdan aad u fiicnaan niidin waa sareysa ayuu yiri balse anaga dadaalkiina ku darno yiri waxa saas ayuu ku soo gabagabay Pep hadalkiisa saaxiibayaal wad bahasadiin waxa idin kaga codsanayaan 100 subscribe na gaartiisaan saaxiibayaal waxaan ka rajeynaynaa 100 subscribe na gaartiisaan waadna mahadsantihiin